abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Odawa Yuusuf Raage oo wareysi gaar ah siinayay telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa waxa uu ka hadlay mushahar la'aanta maalmihii ugu dambeeyay ay ka caawinayeen ciidanka militariga Soomaaliya waa kan abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo arrimahaasi ka hadlaya waxa muhiim ah meesha loo socdo iyo ujeedooyinka laga leeyahay diiwaan gelinta taasoo waxa ugu muhiimsan ay yihiin askari kasta oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inuu mushaaraadkiisa iyo xuquuqda uu leeyahay oo ku helo hab account ah taas ayaa gundhig u ah meesha loo socdo iyo ujeedooyinka dabcan ay soo bilowday muxuu ahaa sheegay hawshan ay u bilaabatay ayadoo hormuud ah wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya meel fiican uu soo gaaro runtii waan ognahay caqabado badan iyo culeysyo badan way jirayaan sababtoo ah waxa lagu shaqeynayo waa systemkaasna waxyaabo qaladaad ah iska imaan kara taasna waxaan rajaynayaa insha Allah taala ayadana waqtiyada dhow in la xaqiiji doono oo muxuu ahaa sheegay la sixi doono waxyaabaha yar yar ka qaldan laakiin runtii waxaan dhihi karnaa boqolkiiba 80 waxay noo soo gaartay meelo macquul ah noo soo gaartay meelaha dhiman iyo muxuu ahaa sheegay colalka dhimanna waxaan rajaynayaa insha Allah taala ayadana inay si habsami leh oo wanaagsan ay ku soo dhamaan doonto maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxa taagneyd cabasho ay muujinayeen ciidanka militariga Soomaaliya qaar kamid ah kuwa oo tilmaamayay in dhowr bilood aan qaadan wax mushaar ah waxa jira qaar kamid ah ciidanka militariga Soomaaliya oo ka soo baxay furmaha hore ee dagaalka gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose deegaanka Dhanaane Cabdiwahaab Aadan Abdurrahmaan telefishinka caalamiga ah Janaawkay Muqdisho